الله عليكم ورحمته وبركاته كل wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasta oo nolol socotaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan uga hadli doono warar la xiriira xaaladaha wadanka Itoobiya si gaar ah barnaamijkan waxaan diiradda ugu saari doonaa dawlad deegaanka Amxaarada oo ay ka socdaan dagaal culus oo u dhaxeeya dhinacyo kala duwan oo iska hor imaadyadaasi ay magaalooyin waaweyn ku dhexmaraya wali xaluma helin xiisada ka taagan dawlad deegaanka Amxaarada ee ka dhalatay kala diristii ciidamada deegaanada taasi oo ay ka biyadiidan yihiin iyo sidoo kale arin ugu hoos qarsoon oo la xiriirta dawlad deegaanka Tigrayga iyo heshiiska lala galay ama haysashada gobolada Raaya iyo Alkayd halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkaasi muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga adna ku maatantiin arada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagtaan sida la wada socotaan xaaladda wadanka Itoobiya wali madagana waliba meelo kala duwan ay dhacdooyin iska hor imaadiya ah ay ka socdaan kuwaasi oo loo arko in ay xaaladda wadanka dhibaatooyin kala duwan ku yihiin marka laga reebo dawlad deegaanka Oromada oo jabhadda oola iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa militarigu ay marar kala duwan isku farasaaraan isbuucii ama bishiiba dhowr jeer waxa taagan arinta ku saabsan dawlad deegaanka Amxaarada taasi oo dadku in badan oo kamid ay u haystaan in ay degtay laakiin wali ma jirto wax deganaansho ah oo la xiriira xaaladda deegaanka Amxaarada isku dayo xal loogu raadinayay dhinaca siyaasadda ayaa jiray maalmihii la soo dhaafay taasi oo dadku ay wada filayeen in xiisada hoos u dejin doonto laakiin ma jirto wali wax isbedel ah oo haba yaraatay arrimahaasi ku saabsan oo dhacay waxaana jira dagaal culus oo kana socda magaalooyin dhowr ah oo dawlad deegaanka Amxaarada ah kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada militariga wadanka Itoobiya iyo jabhadda Faana iyo qaar kamid ah ciidamadii gaarka ah ee dawlad deegaanka Amxaarada dhawaana waxa jirtay jabhad cusub oo ay ku dhawaaqeen xubno siyaasiyiin waliba xisbiyada mucaaradka deegaanka Amxaarada ka tirsanaa kuwaasi oo hadda sheegay in jabhad hor leh iyaga oo ka faa'iideysanaya isbedelka Faana iyo ciidamada gaarka ku dhacay ayna doonayaan in intii isugu isugu hagaagta intay isku dudaan in ay dagaal kala hortagaan dawladda Abiy Ahmed inkastoo ay jiraan warar sheegaya dhammaan waxyaabahaasi waa waxay Amxaara isla ogtahay oo waxay ku raadinayaan sadbursi gooni ah oo dhinaca siyaasadda ama ciidamadaba ah oo maadaama ciidamadii la kala diray in ay helaan saraakiil iyo xubno dheeraad ah oo ay iyagu militariga iyo ciidamadaba ka helaan meelahaasi kala duwanaa ee ay dagaaladu ka socdeen ilaa iyo hadda ma jiro xal rasmi ah oo laga gaaray oo la doonayo in lagu soo gabagabeeyo ama lagu soo afjaro arinta ku saabsan dagaalka dhinacyadan kala duwan u dhaxeeya ciidamada militariga wadanka Itoobiya ayaa diyaar u ah in ay arintaas iyada awood ku soo afjaraan sida aan xogo kala duwan ku helay sidoo kale tan waxa jira maleeshiyadyo kala duwan oo iyaguna dhinacooda doonaya in ay dagaalkaasi sii wadaan si ay dawladda cadaadis xoogan u saaraan isku soo wada duduubee dagaaladani waxa ay noqonayaan kuwo ilaa iyo hadda aan haba yaraatee wax xal loo haynin xiisaduna aad moodo in ay marka ka dambaysa ay ka sii darayso meelaha dagaalada ugu culus hadda ka socdaan waa magaalada lagu magacaabo Debre Marqos oo deegaanka Amxaarada ka tirsan ciidamo kala duwan oo dhinacyadaasi inay isku farasaarayaan hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayo waxa jira baaqiyo siyaasadeed oo soo baxaya iyo kuwa xabadaasi lagu joojinayo laakiin dhinaca kale waxa barbar socda kuwa u eg horinta colaadahaasi oo si gaar ah waliba warbaahinta dawlad deegaanka Amxaaradu ay wadaan oo ay leeyihiin duulaanka waa wax loo dhan yahay waa arin la isla wada og yahay waana lagu soo duulay waxa Tigray loola heshiinayeen annagana la gumaado ayay ahayd iyo warar kale oo la mid ah laakiin dawladda federaalka ah ee wadanka Itoobiya gabi ahaan beedahaasi way iska fogeysay siyaasiyiinta dawlad deegaanka Amxaarada ee ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhankooda waxay u muuqdaan kuwa aan wax isbedel samaynin haba yaraatee qaarkoodna aad moodaba in ay la jirsanayaan dhinaca deegaankooda iyo waliba dagaaladaasi socda
waana mid xaqiijinaysa in ay ka dhaqan iyo siyaasad wan yihiin maamulada kaleeto iyo siyaasiyiinta deegaanada kaleeto ka soo jeeda maadaama iyagu mar walba ay awoodda saaraan in shacabkooda wixii midaynaya wadajirkooda iyo weliba wixii xuquuqdooda ilaalinaya ka amxaara ahaan ay inta badan u fiiriyaan. haddaba dagaaladaasi weli waa ay socdaan, wax isbedelina haba yaraata ma jiraan. baaqiyo kala duwan oo kasoo baxaya ayaa jira in badbaadin iyo weliba joojinta dagaalkaasi la sameeyo. haddaba waxaan arrimahaas kolkii si guud loo fiiriyo dagaalkii oo socda iyo weli iska hor imaadyadii dhinacaasi oo socda, deegaanadii kaleeto oo ciidamadii wareejinaya deegaanka Soomaaliduba ha ugu horeeyo oo bilaabay howlahaas iyo qabashada barnaamijyadaas iyaga ah iyo amxaaro dagaalkaasi ku jirta. laba sababood ayaa loo badinayaa sida ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda indheeya in uu dagaalkani salka ku hayo. waa midda koobaad waataan hore idinku sheegnay maalmihii ugu horeysay ee howlahan ay bilowdeen oo ah inay sadbursi gooni ah helaan. nimankani way arkeen hadda inayna sii socon karin jabhada doorka ku jira, dowladuna ay arinteedu seefteedu galaadahay oo dagaal ay ku qaadayso cid walba. wixii Tigray ku dhacayna lagu wada qoos qaatay. faana marka doorka kuma sii jiri karto, ciidamadan gaarka ee deegaankooduna doorka kuma jiri karaan. haddana sidaasi oo ay tahay militariga haddii aynan ku biirin iyaga waxay ku tahay caqabad ka deegaan ahaan. sababtuna waxay leeyihiin sanadihii la soo dhaafay oo dhanba annaga waxaana lagu waday dagaal iyo in ciidankanagii laga saaro saraakiishanadii militariga oo aanan ku lahayn ciidamo fiican oo waliba dhinaca saraakiisha ah. sidaas darteed fursad dhinaca luqadda ah iyo waxbarashada anagu waanu leenahay oo amxaaraanu u nahay militariga in lagu biiro oo qof aan luqadahaasi aqoonin nalagama helayo. waa in dadkiina difaaci lahaa ee dowladda dhexe nagaga iska gudbi lahaa iyo ciidamada militariga ee wixiina gaara iyo wixii nagu soo foolle aan kala tashan lahayn waa in horta nalaga helaa. sidaas darteed rag faana ka tirsan iyo kuwa ka tirsan ciidamadii gaarka ahay waa inay militariga noo galaan iyo kuwa cusub oo militariga ka tirsan oo naloo dalaacsiiyo si aan dowladda dhexe sharkeeda uga nabad galo. qodob waa qodobkaas oo ay aaminsan yihiin cadaadiskan hadda jabhadaan oo asaasaynaa iyo faana iyo waxa isku biiray ciidankii gaarka ahaa iyo wararkaas ay wadaan oo dhan waa arrin cadaadiskaas la xiriirta. qodobka labaad ee ay u sameynayaan arrintan ayaa waxa ay tahay in aysan weli iyagu raalli ka noqonin heshiiska dowladda federaalka ah iyo TPLF oo ay aaminsan yihiin in heshiiskaasi yahay mid dhinac ka raran iyaga loola goleeyahay wixii ku soo baxa ama ku soo kordhana mar walba iyaga ay dhibaato ku tahay. waxa kale oo inta u dheer gobolay ka haystaan, laba gobol bay dowlad deegaanka Tigray weli haystaan oo ay leeyihiin annaga asal ahaanba u leh. mid waxa ka soo jeeda madaxweynaha dowlad deegaanka Tigray loo magacaabay ee kumeel gaarka ee Getachew Reda. arrintaas marka inay yeelaan mar rabaan iyaguna oo waxay leeyihiin deegaanadanadii oo dagaal lagu soo qaadayo Tigray anagu duulaan ugu soo yahay dowladdu ma annaga inoo mijin qabanaysa. shalayna waanu garab istaagnay sidii aan idinku lisnay meedaan noogu hambaynin Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa. midna waa qorshe noocaas oo doonayaan waa tan ay u diidan yihiin maxaabiista in la sii daayo, waa tan ay u diidan yihiin heshiisku inuu si toos u dhaqan galo, waa tan ay isku dayayaan maalin walba in ay carqaladeeyaan oo ay caqabad ku noqdaan heshiiskaasi iyo sidii uu u hirgeli lahaa. TPLFna ay cabashooyinka kala duwan ka qabto. wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan haddii uu go'aansan.